bismillaah alxamdulilah ilaah mahad iskale walaalayaal mar walba joogtaan soo dhowaada. caawa waxaan ka bilaabaynaa cashirkeena bolibolidi oo iyadoo qeyb dhexnoo maraysa video hore oo naga jarmay, marka sharaxaadeeda iyo qaabka ay tahay waan horyaan usoo sheegnay. waxaan soo sheegnay bolibolidi marka ay macnaha ka bataan amaba gametes markay bataan ayaan kusoo sheegnay in loo yaqaano bolibolidis. gameteski tiradii looga baahnaa marka ay ka bataan ayaa waxaa loo yaqaanaa bolibolidi. waa kana gudaha aan galno horen waa usoo sheegnay laakiin waan iska dulmaraynaa. some organisms noolayaasha qaar half a more than waxay leeyihin in ka badan 2 complete chromosome marka ay yeeshaan laba ka badan oo chromosomyadoodii dhamaystirna oo marka yeeshaan marka intaas ka badan ay yeeshaan laba ka badan marka yeeshaan oo setes urur chromosome ay yeeshaan in ay ku yeeshaan all somatic waa maxsal somatic cellkooda gebi ahaanba uu sidaas u noqdo. The general term qaabka guud oo for this chromosomal alternation marka waxaan leenahay qaabka guud isku bedelaan chromosomyadaasi waxaa loo yaqaanaa markaasi bolibolidi. chromosomyo aada u batay ayaa loo yaqaanaa bolibolidi. waaye in specific terms si qaas markaa u firino in specific term tribolidi markaa tribolidi oo kale ayaa ka mid ah tetrabolidi oo kale ka mid indicate waxay cadaynaysaa trida in siriya cadayni markay tetra tahayna 4 chromosome sets 4 kooxood oo chromosomya ayna yaalaan cadayni respectively markaa firino. one way hal qaab oo triploid cellka my rise sare ayuu noqon karaa is a bifa waxaana keeni kara sare ahaanshada fertilization waxay dhici kartaa marka bacriminta ay socoto of an abnormal diploid egg. waa maxay abnormal diploid egg? ukun micnaha diploid ah oo aan caadi ahayn ayaa markaas ka timaaday produced waxaana lagu soo saaray ukuntaas non distinction qaabka kala bixid la-aanta ayaa lagu soo saaray of all its chromosomyada. marka inay timaado tiradaasi xadaafka ah non distinctionka ayaa markaasi keeni kara oo ah sidoo kale cilad jirto non distinction ayaa meesha keeni karta oo sabab u ah. waayahay tetrabolidiga could result waxaa kasoo xasili kara from a failure inay ku fashilan 2n zagot bacrimintii caadiga ahayd 2n waa zagot waan soo sheegnay sama 2n zagot waa bacrimane bacrimane macnaha bacrimane dhammaystiran waa oo ah 23 marka uu yahay 2n waa diploid loo yaqaan diploid ama haploid ayaa loo yaqaana. marka 2n marka lahay waa 2da waa tiradii totalki guud waaye ntaasna waa number of chromosomeka waay laba ku dhufo marka laba oo totalka ah 23 ku dhufo 46 waa hadda bini aadamka kaliya maahe macnaha mid walba gaameedyadii noolayaasha waay. dameerka oo kale hadda maxaa waaye markaa firino 2n markaan firino 2n tiisa 2 waa tiro totalka nt maxaa waaye number chromosome 31 qaabkaas noqonaysa markaa firin guud ahaan. waaye 2n zagot ayaa kadibna cilad ku timaada waaye to divide inay qaybsanto after replicating marka ay jirtay koobiyeynta its chromosomyadiisa. subsequent waa maxay taxan hoosaadka normal mitotic division waa maxay mitotic division caadi inuu dhaca wurden kadibna producer soo saara 4n embryo uur ku jirta noolayahaas waxay soo saaraysaa 4n afar soo saari 4n ay soo saari. haye bolibolidi ayaa markaas isfarli waa maxay si xad dhaaf common wuxuu macnaha si xad dhaaf ugu soo muuqdaa oo aad iyo aad caan uga ah in the plant kingdom waa maxay boqortooyada dhirta ayuu caan ku yahay markaa firino. the spontaneous origin waa maxay socodka ay soconaysa spontaneous origin socodka ay soconaysa markaa firino of bolibolidga individualis noolayaasha markaa firino balays way ciyaaraan. marka warkan waxaa ugu muhiimsan bolibolidga wuxuu aad iyo aad ugu soo muuqdaa amaba caan uu ku yahayba amaba aad iyo aad ugu soo muuqdaa noolayaasha nool ayuu ka soo muuqdaa si xad dhaaf ah. noolayaasha nool aan dhihin dhirta ayuu si xad dhaaf ugu soo muuqdaa. waa qaabka marka waaye bolibolidi sifarli ilaahi si xad dhaafa common waxaa caan ku ah in the plant kingdom boqortooyada dhirta ayaa caan ku ah. the spontaneous waa maxay origin isbedelkaasi marka asalka ah
ku dhici kara origin isbedelka markaa ku dhici kara. Spontaneous waxaa shay iskiisina wax ku dhacaan, shayga iskiisina wax ku dhacaan. Spontaneous waa max origin, waa max asal ahaanshahaas isbedelka iskiis ugu dhacay. Markaa firino of polyploidiga individualska balay waxay ka ciyaaraan an important role, door muhiim ay ka ciyaaraan in plant evolution, horumarka dhirta ay sameyn karto. tadawur evolution, horumarka ay sameyn karto door muhiim ay ka ciyaartaa. waa dhirta marka qaabkaas isbedelkaas lama filaanka inuu ku dhaca door muhiim ay ka ciyaartaa dhirta. laakiin noolayaashu noolaha nool oo kale polyploidy ma sameyn karo. haddii uu sameeyana noolahaas caloosha ku burburaa. laakiin dhirtu wayba u fiican taho oo waayo tarankaasi badan ayaa crop badan ayaa sameysmayo, faa'iiday u tahay oo positive side u tahay iyada. laakiin noolayaashu maya, cilad waa imaani, noolihiin uu ku dhimanaaba siba bini'aadamka oo kale. many species sinjiye badan ayaa we eat aan cunaa are iyaga polyploid waay. bananas oo kale triploid waay. wheat qamadi oo kale hexaploid waay. 6 uu ka kooban fiiri. ana soo kale strawberries waa maxay geedka miraha gaduudan. markaa fiirino octoploid waa 8 waay. polyploidka animal species markaa fiir are much less common. marka noolayaasha aan fiirina aad iyo aad ayuu macnaha ugu yaryahay caanahanshahooda, caan kuma aha. bad laakiin waxaa jira few fishes ayaa jira, fishes ayaa jira oo ah kalluun ayaa jira, amphibians iyo waxaa jira amphibians ayaa jira, kuwaasoo noun to be sameyn karo oo caan ku ah polyploidiga. markaan fiir amphibianska qaar, amphibianska waa raha iyo fish malayga. markaa fiiriso kuwaas oo kale waxaa waaye caanay ku way sameyn karaan, laakiin noolayaasha kale inay sameeyaan way adag tahay. waaye activity-gana cudurrada markaas dhaca ayuu markaas guud ahaan sawiradan ay tilmaamayaan ama genetic disorder ku dhaca ay tilmaamayaan. waaye selective breeding waa cinwaankii inoogu dambeeyey. selective breeding waxaa loo yaqaanaa ama applied genetics dhaqangelinta ah. waxaa waa genetics dhaqangelinta hadda selective breeding waxaa isku talaalid la soo xulay. waxaa la soo xulaa sacaan hadda noole ayaa la ogaanaa. noolahan markii la ogaado jiinkan inuu asiga ku shaqeynayo uu ku habboon yahay, markii la ogaado kadib noolihii ayaa markaas lagu talaalaa. taasoo kale waxaa loo yaqaanaa selective breeding. hadda markaa firino haadi sac loo yaqaano ayaa kaasoo leh tuur ayaa wuxuu ku noolaan karaa climateska kuleylka ah. sacaan kaloo tender loo yaqaanana kuma noolaan kara asiga tuur mala horto, kumana noolaan kara deegaanada ama meelaha cimilada leh kuma noolaan karo. marka si loo helo sac labadiiba ku noolaan kara loo helo, sacaan waxaa laga soo qaadaa sacaan tuurta leh oo meesha kuleel ku noolaan kara jiiniskiisa qaar laga soo qaadaa. sacaan kalena waxaa laga soo qaadaa jiiniskiisa kan aan ku noolaan karin jiiniskiisa meel laga soo qaadaa. si loo helo sac dhexdhexaad oo labadii meelba u dul qaadan karo, ama kuleyl ha ahaato ama kuleyl ahaanin intaba ku samey karo ayaa markaa si looga soo saaro. marka waxaa waaye selective breeding waxaa waaye jiin in lasoo xulo, jiinkaasoo tayada uu sameynayo darteed loo baahan yahay jiin in lasoo xulo, kadibna jiinkaasi la isticmaalo qaab farsamaysan amaba horumar loo isticmaalo ayaa waxaa loo yaqaanaa selective breeding. gudaha ugalnasinays maadaama ancient times waa maxay dhowr jeer ancient times mararka hore humans biniaadamka bred animals ku talaaleen with a certain trait sifooyin cayimna ay ku talaaleen to obtain si loo helo offspring ubad loo helo daadaas kuwaasoo leh haaf leh desired trait sifooyin laga helay yeelan karo ayaa jira u leeyahay. as a result waxaana kasoo xasilay these trait sifooyinkan becoming noqda more common kuwa caan ku ah breeding isku talaalid. markaa fili for a certain desired traits sifooyinkaasi markaasi loo baahan yahay decided la jecel yahay, sifooyinkaas la jecel markaa firino is not restricted waa maxay kuwa xadidan maaha to animals alone, noolayaasha keliya mid ku xadid ma aha. plants also are iyaga breed waa isku talaalaa to produce loo soo saaro decided traits sifooyin cayiman, sifooyin la jecel yahay si loo soo saaro. sida larger fruits waa maxay miraha waaweynka oo kale, and shorter growing times waa maxay iyo kuwa sida gaaban ku baxaya degdega ku baxaya oo kale ayaa ka mid ah faa'iidooyin kuwa leh oo la soo xuli kara.
the process nidaamka by which aso decided trait sifooyinka la jecel yahay lagu soo xulayo of a certain plantis waliba iyadoo lagu sameynayo noolya macnaha plantis cayiman iyadoo lagu sameynayo noolyaal cayiman iyadoo lagu saleynayo are select waa la soo xulaya ana kadibna pass it on waa loo soo gudbinaya to their future generation waa maxay future generation waa maxay jiilkooda mustaqbalka ayaa loo soo gudbinayaa taas iskol waxaa loo yaqaanaa selective breeding waxaa waaye in la soo xulo sifooyinka cayiman ee noolayaasha dhirta iyo noolayaasha ay leeyihiin in la soo xulo kadibna loo gudbiyo jiilkooda mustaqbalka ayaa waxaa loo yaqaanaa selective breeding loo yaqaanaa through iyadoo loo marayo the process nidaamka of hybridization macnaha hybridization ee midoobida iyadoo loo marayo and inbreeding isku talaalida nafsadooda inbreeding in gudahooda isku talaalo decided trait sifooyinkaasi laga helay can be iyaga passed on waa maxay can be passed on waa maxay waa kuwa macnaha la marsiin karo future generation jiilkooda ayaa la marsiin karaa future generation marka laga hadlayo jiilkooda ayaa la marsiin karaa waaye sida figureka hadda nooc cayimayo illustrated selective breeding oo nooc cayima haadi sac loo yaqaano can thrive tour ayuu lahaan karaa in a hot climates meelaha hot climateska ayana tuurtaasi uu ku leeyahay marka uu joogo the beef waa maxay sacana is not as a good waa maxay macnaha kuma fiicno meelaha kale kuma fiicno sacaasi loo yaqaan haadi oo tuurta leh sacan kale oo tandar loo yaqaan asigana taas beef waa leekraaye does not thrive as a tour malaha mana ku noolaa kara meelaha kulul marka si loo helo sac dhexdhexaad ah oo labadiba ku noolaa kara meesha kuleylka ama meesha kale labada ku noolaa kara ayaa marka laga soo saaray midkan jiina laga soo qaaday midkan jiin sacaasa kadibna lagu talaalay heat saca resist cattle with a tender beef markaa fiiriso sacan markaa fiiriso waa lagu talaal jiinka waxaa lagu talaalay kuleylka meeshii ayaa lagu talaalay kadibna u dulqaatayba markaa fiiriso sacaasi hybridization marka qaabkaas loo yaqaan selective breeding xataa maanta caana booraha iyo waxyaabahaas in la sameeyo waxaa la ogaanaa keliya bas ah noolahan kan ah waxaa la ogaanaa jiin aad iyo aad macnaha caano badan ka keenayo ayaa la ogaanaa sacan jiinkaas oo ku fiican noolihii in caano badan uu sameeyo saci ku fiican marka waxaa la sameynaa marka selective breeding la sameynaa caano badana laga soo saara kadib caanahaasi badan kadib way soo warshadeynayaan maadaama ay badayin muddo badan inay waaraan la rabo waa la soo warshadeynaa kadib waa lagu keenaa caano boorahaas aragta qaabkaas marka caano boorahaas waxaa lagu keenay selective breeding qudheeda lagu keenay hybridization ayaa nooga xigta hybridization in la mideeyo waa hybrid results natiijooyinka la mideeyey in a crossing parent organisms noolayaasha waalidka isku crossayo with different forms qaabab kala duwan isku crossayo of a trait sifooyin to produce loo soo saaro office bring ubad with specific trait iyadoo lagu talaalayo sifa cayiman farmers beeraleyda ee animal breeders iyo talaalayaasha noolayaasha kuwa isku talaala iyo scientists saynisyahannadu and gardeners iyo kuwa darjiinada wax ku talaala waa si xad dhaaf ay isticmaalaan the production ay soo saaraan hybrid waa maxay noolayaal isku barxan oo macnaha wada jira inay soo saaraan also known as taas waxaa loo yaqaanaa hybridization isku barxid maxaa waaye laba noole macnaha in laba noole sifooyinkooda isku dara ayaa waxaa loo yaqaanaa hybridization midayn waaye in la mideeyo haye they iyaga selected traits oo sifooyin lasoo xulo hybridization waxay ku imaataa sifo lasoo xulo hadda taas oo kale ka mid ah daataas will give ku siinaysa hybrid organism waa maxay hybrid organism noole macnaha barxan oo competitive age waa maxay dhinac walbana ka dhammaystiran ayay ku siinaysaa hadda sacan dhinac walbana uu ku dhammaystira markaa firis competitive waay age waa sababta waxaa waaye dhinaceed Turner meeshuu ku liitay markuu ahaa Turner meeshuu ku liitay waa ka fiican yahay Hadin meeshuu ku liitay uu ka fiican yahay markaa firis waa qaabka inbreeding waxaa waaye in noolaha dhexdiisa ku talaalo inbreeding noolaha dhexdiisa ku talaalo taas loo yaqaan once breeder mid ka mid ah talaalayaasha kuwa wax isku talaalaya observers wuxuu u korkalay decided trait sifa aad iyo aad looga helay ayuu u korkalay ka taasoo ka dhex jirta noolayaasha
process nidaamka isnidi loo baahan yahay to ensure in la xaqiijiyo that taasoo the trait sifooyinka is passed on waa maxay la soo marsinayo a future generation jiilka mustaqbalka soo marsinayo taasoo la soo marsinayo jiilka mustaqbalka la soo marsinayo waayo isku talaaladaas maxaa laga rabaa keliya isku talaaladaas waxaa loo sameynaa keliya si jiilkan tusaale jiilka hadda markaasi jooga ayaa sifadiisu aada u fiican tahay si sifadaas ay usii jirto ayaa waxaa la sameynaa dhexdood in laisku talaalo hadda bini aadamka xataa qudheeda waa la sameyn karaa haddii gabadhii iyo wiilkii haddii ciddaan ay sifooyin qurux badan ay leedahay sifo qurux badan ay leedahay gabadhii iyo wiilka waa laisku talaali karaa gabadhi iyo wiilku waa kuwa ilma abtiga ama kuwa ilma eedada oo kale waa laisku talaali karaa oo way isguursan karaan diintan way banaynayso ma gabarta eedada dhashay wiilka gabadha eedadiis dhashuu guursan karaa marka waa qaabka soomaalida inta badan isku daraanba waa yahay haye waa qaabka marka inbreed intaasa loo yaqaana haye the process nidaamka by which in which taasoo two closely si dhow related organism si dhow macnaha xiriirka ula leh are bred liskuna talaalay to have si ay ula hadaan the desired trait sifooyin loo baahna si ay ula hadaan and to eliminate waa maxay inay cirib tiraan and to eliminate in la cirib tiro meesha laga saaro the undecided ones kuwii macnaha sifooyinka aan loo baahnayn meesha laga saaro si loo helo jiilka mustaqbalka sifooyinka wanaagsanaa loo helo ayaa waxaa loo yaqaanaa inbreeding loo yaqaana sifooyinka sida dhow u wada xiriira ee arbrel isku talaalay kuwaasoo sifooyinkaasoo to have si u yeelato decided trait sifo loo baahna si ay u yeelato loona cirib tiro undecided ones kuwii markaasi aan loo baahnayn loo cirib tiro mustaqbalka loo soo saaro jiil sifoon wanaagsan leh ee waxaa loo yaqaanaa inbreeding depression markaa firin inbreeding depression waxaa in laga niyajab inbreeding isku talaaladaas in laga niyajabkaas maxaa marka undecided trait sifo aan markaas loo baahnayn either reduced waa in la yareeyo biological fitness waa maxay baahida nololeed in la yareeyo waa fitness waa baahida taas in a given population ka dhex jirto mujtamacii ka dhex jirto waay mujtamacii ka dhex jirto leeyahay in a given population soo kale as a result waxaana kasoo xasilaa inbreeding isku talaaladaas oo in dhexdooda isku talaalo or amasan breeding waa isku talaalid of related individual noolyaal markaas wada xiriira lagu sameeyo population biological waa maxay nolosha mujtamac markaa firino fitness baahideed markaa firino reference waxaa loo taxin to organisms ability awooda noolaha to survive si loo badbaadiyo and bibage weight waa maxay ayna u waarto sifadii erey bibage weight waxaa waaritaan and bibage weight ayna sifadii usii waarto itis iyada genetic material weliba DNA-deeda si ay waaritaan u samayso in a general markaan filin guud ahaan the higher genetic variation kala duwanaanshaha aada ku sareeya or amasan gene ball markaan firino or amasan gene ball jinka inuu kala fogaado with inbreeding waa maxay isku talaaladii lagu sameynaya la kala fogay ee population mujtamacaasi isku talaaladii dhexdooda laga sameynayo ayaa la kala fogay the less likely waa maxay arintaasi macnaha qaabkaadi marka the less in la yareeyo likely waa maxay sidooda in loo yareeyo is it iyada to suffer from inbreeding waa maxay likely waa maxay sideeda in loo yareeyo waa sifadaas cilada leh in sideeda loo yareeyo it is suffer taas ay ka cawanayaan marka ay ka cabanayaan from inbreeding depression keeni kartana in laga niyajabo isku talaalidii dhexdeed isku talaalida dhexda warkan soo koob marka maxaa keeni kar inbreeding depression maxaa faankeeda in la isku talaalo waaye laba sifo aan haboonayn laba sifo undecided traits maxaa jirta tusaale cilada waxaa jirta albino ayaa jirta albino cudur waaye skin pigmentation kuna yimaado genetic heredity ku yimaado waa cudurkaasi ku yimaado genetic heredity ku yimaado dhaxalka ku yimaaday ayaa marka laga hadlayo sida caadiga ah cudurkaasi waxa keenay genetic heredity ayaa keenmo haddii marka hooyo qabta cudurka qabto albino qabta yaabihi qababa dil isku talaalo inbreeding depression waayo inbreeding depression waxa kale kuma noqonin cilada ugu weyn oo jirta waxay tahay
cilada ugu weyn oo jirta waxay tahay sifadii undesired traits-ka oo albino-ga ahayd inay sii baado. marka inbreeding depression taas loo yaqaana inaad fahanteen aan filaya. halkaas ayaa caawa insha Allah jabtarkii aan ku dhameynay. ilaah awoodiisa iyo fadligiisa ayaana halkaan ku soo gaarnay oo ku dhameynay. ilaahana ku maasan anaga oo caafimaad qabn inaan jabtarka dhameyno insha Allah. biotechnology iyo waa inoo cashradeena daba aad iyo aad u maasantii walaalayaal halka ay noo joogto.